aynu ku bilownay waxa wali magaalada Dhuusamareeb ee maamulka galmudug ka soconaya shir u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada kaasi oo looga hadlayo khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka qodobada la isku hayo ayaa waxa kamid ah arinta gobolka Gado oo ah qodobka sida aadka ah la isugu hayo mana jirto wali wax xal ah oo laga gaaray iyadoo tan iyo shalay ilaa xalay madaxda qodobkaasi ay ka doodayeen madaxda ayaa mar kale dood ay uga socotaa magaalada Dhuusamareeb ayagoona gorfeynayo arrimaha la xiriira khilaafka ka dhashay doorashooyinka Soomaaliya saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in warmurtiyeed laga soo saaro shirka uga socda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug dad la socday gaari siday dhuxul oo ay gubeen al-shabaab ayaa wali waxaa lagu leeyahay nolol iyo geeri sida warbixinta warkan inoogu eegayo wariyaheena Cali Cilmi Salaad wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay lagu gubay guryo hor leh oo ay deganaayeen dad shacab ah waxaana sii adkaanaya xaaladda amni ee deegaanada hoostaga degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe colaadan oo salka ku haysa dagaal beeleed una dhaxaysa beelo walaalaha ee halkaasi wada degaa ayaa galaafatay in ka badan 20 guri iyo dhul beereed 24 saac ee la soo dhaafay dab la qabadsiiyay maamulka degmada Warshiiq ayaa ku baaqay in arintan wax laga qabto gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada Warshiiq oo la hadlay keenan ayaa qeeladaan u diray dawladda federaalka si aysan diritan ugu faafin goobo kale oo hor leh maamul ahaan waxaan qabanay anagu maxuu ahaay waxaan baaq u darnay dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo dawladda federaalka annaga waxaan nahay golihii deegaanka degmada Warshiiq ciidan booliis oo aan ku howlgalno ma jooga degmada marka saas darteed waxaan rabnaa ciidan aan dalbanay insha Allah taala waxaan rabnaa in talaabo sharciga waafaqsan ciidanka dawlad goboleedka Hirshabeelle aan ka dalbanay aan rabnaa haduu la yiraahdo in laga qaado dadkaas maxkamadda la soo taago dadkan dhibaatooyinka ka horyahay degmada Warshiiq dhinaca kale dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa gubay gaari dhuxul siday oo mariyay deegaan dhacdoleedka deegaanka Raagaceelle ee gobolka Shabeellada Dhexe gaariga dhuxusha waday oo al-shabaab ay gubeen ayaa la sheegay inuu ka yimid tuulooyin hoostaga inta u dhaxaysa deegaanka Basra iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe gaarigan oo urna dad shacab ah ay al-shabaab wadada u galeen iyaga oo dab qabadsiiyay dhammaan gaariga iyo dhuxushii saarneed waxaana nolol iyo geeri toona aan lagu hayn dadkii la socday qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in 3 qof oo gaariga la socday aan war laga hayn iyaga oo la tilmaamay inay dansan yihiin lambaradii ay wateen lagana cabsi qabo inay gacanta u galeen al-shabaab ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka Hirshabeelle oo ay uga hadlayaan dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan deegaanada dhaca dhinaca xeebta iyo waliba deegaanada al-shabaab ay qabsanayeen maalmihii la soo dhaafay ee hoos yimaada gobolka Shabeellada Dhexe saraakiisha ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigeen saraakiil ka tirsan al-shabaab una qaabilsaneed qaraxyada galgaduud oo ay ku qabteen dagaal ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa ka waramaya qodobkan ciidamada xoogga dalka ayaa soo bandhigay sargaalka qaybta qaraxyada galgaduud u qaabilsanaa al-shabaab oo lagu magacaabo Xasan Cabdinuur Daad Carays kaasi oo kamid ahaa dagaalamayaashii xalay lagu qabtay howlgalka ay ciidamada xoogga ka fuliyeen duleedka magaalada Dhuusamareeb sargaalka hogaaminaya weerarkii xalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa laga daweynayaa dhaawac ka soo gaaray dagaalka saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa goobta ku soo bandhigay gaariga iyo hubkii ay wateen dagaalamayaasha al-shabaab taliye ku-xigeenka ciidanka dhulka xoogga dalka sareegaas Xuseen Xoosh Cali oo ay weheliyaan mas'uuliyiin iyo maamulka Dhuusamareeb ayaa ku ammaanay ciidamada gorgor ee howlgalka fuliyay sida ay uga hortageen qorshihii al-shabaab ee ahaa inay carqaladeeyaan ammaanka magaalada Dhuusamareeb sidoo kale taliyaha ururka 15aad ee kumaandooska gorgor Maxamed Dhakaweyne ayaa xaqiijiyay inay ciidamada gacanta ku hayaan qori hoobiye ah gaari ay wateen kooxda weerarka soo qaaday qoryo fudud ay ku jiraan 2 BKM nin dhaawac ah iyo 8 meed oo ay ka carareen al-shabaab iyo meedka xubno uu sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab taliyaha ayaa warbaahinta u soo bandhigay hubkii ay ka furteen al-shabaab iyo meedka xubno uu sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab qoyda qawaris waxay damceen qalqaliyaan caasimadda amnigeeda qorgaas u jeedaan binaanka iyo ciidankaas nimanka shabaabka meesha la sagaala ayaa waxay soo weerareen iyo gaarigaas ayaa waxay soo weerareen meeshan waxa ka howlgalay ciidamada amniga gaar ahaan guutada gorgor ururkeeda 15aad waxaana ku guuleysanay inaan qabanno ilaa 12 xagga yaala meedkooda oo hadda waa la soo qaadi waayay laga gaar waayay dhaawac waa jira hadda wax loo qaaday magaalada loo qaaday intana hadda waa qabanay insha Allah hadii Ilaahay idmo ka sii howlgali doonaa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamada xoogga Soomaaliya ay maanta howlgal ka wadaan deegaan hor leh oo ka tirsan gobolka Galgaduud
mahadsanid cabdiraxmaan gacal. shirkii uu iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dib u dhac ku yimid. shirkan oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu iclaamiyey 5 bisha oo ku beegan maanta ayaa waxaa la sheegay in shirkaasi ay iskugu imaan lahaayeen labada gole ee baarlamaanka si uu khudbad ugu jeediyo madaxweyne Farmaajo. sababta keentay shirkaani waa in kulankani uu dib u dhaco ayaa waxaa lagu sheegay 2 qodob oo kala ah in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku mashquulsan yahay shirka ka socda magaalada Dhuusamareeb ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada, iyo in maanta oo ah maalin Jimco ay tahay maalin nasiino ah oo inta badan dadku aysan shaqayn. maalinta Sabtida ah oo ku beegan 6 bishan ayaa la qorsheynayaa in kulankani uu dhaco, kaasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya la filayo inuu ka hor hadli doono baarlamaanka isagoona khudbad u jeedin doono taasi oo ku saabsan xaaladda dalka. hay-adda badbaadada caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee Save the Children ayaa waxa ay sheegtay in caruurta ku nool Soomaaliya ay wajahayaan cunno yari ba'an iyo nafaqo darro baahsan. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa warkan faahfaahinaya. warbixin ay soo saartay hay-adda Save the Children ayaa lagu sheegay tirokoob cusub oo la sameeyey in 2.7 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya inay wajahayaan cunno yari ba'an, kuwaasi oo ay ka mid yihiin 839 kun oo caruur kuwaasi oo hayso nafaqo darri ba'an. hay-addan oo ka shaqeysa badbaadada caruurta ayaa warbixinteeda waxa ay ku sheegtay inay ka walacsan tahay xaaladda bini'aadanimo ee sii xumaanaysa ee caruurta ku nool Soomaaliya iyadoo ku sababaysay dhibaatooyinka ka jira dalka sida anyaxa, musiibada coronavirus ee weli saameynteedu jirto. sidoo kale hay-adda ayaa waxa ay ka digtay in haddii aan si dhaqso ah loogu dirin barnaamijyada bini'aadanimada oo aan laga jawaabin baaqa hay-adda in kumanaan ka tirsan caruurta Soomaaliyeed ay noloshooda halis geli doonto. madaxa hay-adda Save the Children qaybteeda Soomaaliya Maxamuud Maxamed Xasan ayaa bayaanka hay-adda soo saartay ku sheegay in bulshada caalamka looga baahan yahay in la sii daayo lacagaha wax looga qabanayo xaaladaha bini'aadanimada. sida laga soo xogtay ururada caalamiga, Soomaaliya ayaa ka mid ah goobaha ay caruurta ku wajahaan dhibaatooyinka isugu jira dhibaatooyinka caafimaad iyo kuwa waddanka ka jira. gargaarkii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay geysay degmada Xudur ayaa la filayaa in dadka ku dhibaataysan degmadaasi loo qaybiyo. degmada waxaa go'doomiyay al-shabaab sidoo faahfaahinta warkaan inuu ku soo dheereynayo wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle. maalinta berita ayaa la filayaa in maamulka gobolka Bakool ay bulshada gaarsiiyaan gargaarkii muddooyinkani kusii qulqulayay degmada Xudur ee gobolka Bakool. dadka la gaarsiin doona gargaarkani ayaa ah bulshada go'doonka ay geliyeen ururka al-shabaab oo muddo ku dhawaad 10 sano ay ka gooyeen wadooyinkii ganacsi iyo dhaqaalaha uga xaroonayay gobolkaasi Bakool. deeqda la gaarsiinayo bulshada ayaa waxay inteeda badani ka timid dawladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo ganacsato ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed. inkastoo maamulka gobolka Bakool gargaarkii ugu horeeyay lagu dhaliilay in ay musuqmaasuqeen qaybintiisa, ayaa haddana waxaan la ogeyn in sidii hore ay dhici karto in kale. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, Radio Kulmiye, magaalada Baydhabo. maamulka Jubbaland ayaa sheegay inuu heegan buuxa geliyay ciidamada ammaanka ee maamulkaas kadib cabsi laga qabo inay qaraxyo ka dhacaan magaalada Kismaayo. Cabdimajid Cabbaas aadan ayaa inoo soo waramay. ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa gudaha magaalada Kismaayo waxa ay ka bilaabeen baaritaano guud ee lagu xaqiijinayo ammaanka kadib markii saraakiil ka tirsan hay'adaha ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ay sheegeen in dagaalamayaasha al-shabaab ay qorsheynayaan inay weerar ka geystaan gudaha magaalada Kismaayo. taliyaha saldhigga ee degmada Kismaayo Gaashaanle Warsame Axmed Geelle warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in baaritaanadan looga gol leeyahay sidii looga hortagi lahaa falalka ammaanka lidiga ku ah kuwaasi oo muddooyinkan dambe magaalada Kismaayo ku soo badanayay. sidoo kale taliyaha saldhigga ee degmada Kismaayo Warsame Axmed Geelle ayaa waxa uu sheegay in baaritaanada ka socda gudaha magaalada Kismaayo ay socon doonaan ilaa iyo toddobaadka dambe, waxaana uu sheegay in looga gol leeyahay sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee magaalada Kismaayo. booliska degmada Kismaayo howlgalkaas waxay quseeyaan waxyaabo badan oo sugan. lambar 1 amniga dhanka amniga baabuurta baabuurka taar kale aan yahay oo bilaa sharci u yahay oo wax sumada lagu raaco una lahayn wuxuu lid ku yahay amniga iyo maartay deganaanshaha magaalada. tukala gal socdo waxa jirta baabuur sharciyada ka dhacsan yihiin oo u baahan laysanka darawalka laysan mareeyay steerka gaariga ma ku dhagan yahay taarikadiisa ma u diyaarsan tahay ayadana dhinac waay. marka waxa soo dhan waxay isla hoos galaysaa dhanka amniga
amniga baabuurka hadduunan lahayn taariko iyo wax lagu garto iyo meel loo raaco iyo qof maaragtay sharci hadduunan lahayn maaragtay waxay noqonaysaa amniga iyo lidku noqonaya sidaa daraaddeed meel fiican uu marayaa gabagaba si fiican buu u socdaa ilaa weega soo socon doonaa hadduu alla idmo howlgalkaas wuxuu daaran yahay sugidda amniga magaalada Kismaayo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanayay falalka ammaanka lidiga ku ahi waxaana inta badan markaasi ay xaafadaha magaalada Kismaayo ka dhacayay qaraxyada nooca bamba gacmeedka ahi iyo sidoo kale dilalka loo geysanayo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. Cabdilmajiid Cabbaas Aadan Fantastic KNN